Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Allah u naxariistay waxaa galabta aas qaran loogu sameeyay xabaalaha buska ee magaalada Burco marxuum Caaqil Maxamuud Xasan Guuleed oo ka mid ahaa cuqaasha waaweyn ee reer Somaliland. Aaska marxuumka ay isugu yimaadeen inta badan odayaasha salaadiinta iyo waxgaradka gobolka Togdheer ayay waxa taariikhdii iyo sifooyinkii marxuumka ka sheekeeyay Ambassador Maxamuud Aadan Jaamac Galaal, wasiir dowladihii hore wasaaradda caafimaadka, xildhibaan Jabaal Xiinwaal iyo salaadiin kale, iyagoona alla uga baryay in marxuumka naxariistiisa ugu deeqo samiriye iimaano uu ka siiyo eheladii qaraabadii iyo qaranka Somaliland ee ka baxay. aaskii maxruum Maxamuud Xasan Guuleed waxaan filayaa dadka gobolka Togdheer ku dhaqani inay wada garanayaan Maxamuud Xasan Guuleed iyo shakhsiyadiisii Maxamuud Shaal. wuxuu ahaa caaqil, wuxuu ahaa nin odaya, nin daacada, nin duun wanaagsan. waxaan furayaa oo aan markhaati ka ahay inuu ahaa addoon wanaagsan oo dadka isku wada oo la wada jecel yahay. haddana taasaynu hurannahay oo waddadaasaynu haynaa, waynu kala horraynaa uun. nin la tabayo weeyaan Maxamuud Shaal, ilaahay ha naxariistee. ilaahayna waxaanu ka baryaynaa cawilkiisii nin kaalintiisii buuxiya inuu inoogu bedelo. isagana waynuu ducaynaynaayoo jannatul firdaws iyaynu ugu ducaynaynaa. halkan waxaan maanta joognaa aaskii marxuum Maxamuud Xasan Guuleed, ilaahay ha naxariisto, oo maanta lagu aasay magaalada Burco. ilaahay ha naxariisto, ilaahay ha naxariisto, ilaahay ha naxariisto. samiriyeman dhammaan reer Xasan Guuleed iyo reerihiisii, carruurihiisii iyo ehladiisii, qaraabadiisii, ilaahay samiriyeman ka siiyo. wax kaloo maanta la qaban karaya ma jirto, waa in loo duceeyo in ilaahay u naxariisto. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaanu maanta halkan ku aasaynaa Caaqil Maxamuud Xasan Guuleed. ilaahay ha u naxariisto. waxa uu inaga mudan yahay waa duco. inagu maanta waxaanu inooga baahan yahay waa duco. waynu u ducaynaynaa, ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu jannata firdawsa geeyo, inuu wuxuu dembi lahaa ilaahay ka dhaafo, inuu qabriga u nuuro oo waasiciyo. sidaasaynu ugu ducaynaynaa. wuxuu ahaa nin caaqila oo qiimo leh, oo qoon leh, oo waxgarad ah, oo dul iyo daacadnimo leh ayuu ahaa. wuxuu ahaa nin karti badan ayuu ahaa. ilaahi wa inna ilayhi raaji'uun. waa geeri naxdin leh. Maxamuud Xasan Guuleed, ilaahay naxariistii jannaha ka waraabsho. waxaa weeye wuxuu ahaa tiirarka beesha Samana Abukar, tiirarka ugu waaweyn buu ahaa. ilaahay naxariistii jannaha ka waraabsho. runtii waa nin gobolka Togdheer uu tabi doono weeye xaqiiqa ahaan. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. caaqil Maxamuud Xasan Guuleed inta casiisiisa joogna, ilaahay waxaynu weydiinaynaa subxaanahu wa tacaala inuu bir Ramadaan buu dhintay, inuu helo khayrana uu ahaa. ilaahay waxaynu weydiinaynaa subxaanahu wa tacaala inuu naxariista janno ka waraabiyo. ilaahay aqaaribtii iyo gobolka Togdheer oo dhan awlaadiisii ee halkii inuu dhammaan samir iyo iimaan ka siiyo. Ilaahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan joognaa aaska marxuum Caaqil Maxamuud Xaaji Xasan. waxaan halkan taxsiin tirayaan looga direynaa dhammaan reer Maxamuud Shaal iyo qoyskii, qaraabadii iyo qaranka Somaliland ee uu ka baxay. marxuumku sidaa la sheegay wuxuu ahaa marxuum ku sifaysan wanaagga iyo ka shaqaynta nabadda. samir iyo iimaan haynaga siiyo. daartan adduunyana ugu bedelo daar ka khayr badan. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan guud ahaan taasi tiraanya leh u dirayaa dhammaan reer Maxamuud Xaaji Xasan Guuleed, Maxamuud Shaal, caaqilka oo ka mid ahaa cuqaasha waaweyn ee Somaliland, kuwa gobolka Togdheer, tiir dhaxaadna uu ahaa nabadgelyada iyo yagleelka qarankan jamhuuriyadda Somaliland. waxaan dhammaan eheladii, qaraabadii, asxaabtii iyo qaranka uu ka baxay baan leeyahay samiriye iimaan ilaahay ha naga siiyo. waxaan isagana ugu ducaynaynaa inuu ilaahay jannatul firdawsa uu ka waraabiyo marxuumka. eheladii qaraabadiina samiriye iimaan.
inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisii jannaha ka waraabiyo caaqil maxamuud xasan shaal, ehelkiisii, asxaabtiisii, qoyskii, qaraabadii uu ka geeriyooday samir yeyman waxweynaha ka siiyo. inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. maanta waxaan joognaa aaskii maxamuud xaaji xasan guuleed oo lagu aasayay magaalada burco, gaar ahaan xabaalihii warshadda. waxa ahaa addoon wanaagsan, wuxuu ka mid ahaa raggii ka soo shaqeeyey ama ka soo qayb qaatay dibudhiskii dalka iyo nabadayntii beelaha somalilan. waxaan leenahay eheladii, qaraabadii iyo guud ahaan shacbiga somalilan ilaahay samir iyo iimaanadii ka siiyo. Shaafici Maxamed Ibraahim, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.